السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسر دواد ورئيس كوبنا هالكنا كقاعد إنه ماير كمدحلات كسر دمادي مقالة بورما سلبان حسن حدي ماير سلبان حسن حدي وها ماير كي ووقت قدراء السمر الدقمة بورما استمر كان الله بجار كسر نقضي مدحلات كدقمة بورما ماير مركورا كسر دويننا والله سعوت هذا الدل كسر أكتب دورة شاكر عادي أقوليال ديجان يقرأ وكلا يالود دورتي خاصة كرسي كان دوان تدورجين سنة من الدقمة بورما كوي لا تنك مدنات كواهدان دوان واحد كورجين دون tan mudanayaalka kooban 13 mudane oo laga soo kala doortay saddexda xisbi qaran ee wadan iyo kulmiye iyo ucud sidee ay kula muuqataa doorashadii ee dalka ka dhacday iyo mudanayaashan maanta xilka idin kala wareegaya walaaskeeda halahaato doorasho ka soo kale culays weeladay runtii laakiin sida la iska xil saaray xukuumadda iyo komishanka qaranka iyo xisbiyada mucaaradkuba iyo guud ahaan shacbigu aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa runtii waan iska xil saareen nin walba halka uu joogo ayuu mas'uuliyad ku qaatay taasoo keenaysa markaa in sidii loogu talagalay u dhacdo golahanna waxa weeyay anagu lama dhalan kuraasida waaba ku raagnayba dadka qaar malaaba jeclaysanayaan waan ku raagnay kuraasida runtii in la isbedelana waa waajib waa sunnah dawladnimo qofku halka uu joogo inuu ka sii kordho oo kor uga sii kacaanada waa wax ambishka qofka ku xiran inuu halka ku ekaado rabitaankiisa inta uu ahaana waa mid iyadna meesha taalan runtii golahana waan dhalinyar mutacalimiina ayaa intooda badan runtii ku jira oo niman aqoon u leh aqoon leh laakiin dawladda hoose aqoonta looga baahan yahay iyo runtii aqoontu waa kala caadi way kala duwan tahay runtii waxa weeyaan mid anu imika intaan xilka hayay aqoonta aan bartay iyo shahaadooyinka dawladda hoose la yimi waxa ka muhiimsan kuwa dawladda hoose kaga qalijabiyay dhalinyarada waxaan leeyahay kulay ilaahay ku asturo waan idin garab taagana wixii khibradana idin garab taaganahay because of ku ka soo qabtaa waa dhalinyarada yadii mid aan isku waji xunahayna ma jiro dhamaantood inta soo baxday oo dhan saaxiibaan nahay waana niman wada runtii maskaxiyan muddo kara ee kasbeenayska dawladnimana wixii aanu ku dhaalno waanu midaan diyaar u lana waxaasleeyin muxuu Salmaan Xasan Xadii isku soo sharxi leeyahay maadaama ay soo sharxeen saaxiibadiisa kale deegaanada kale dalka maamulayay ma kalsoonida shacabkiisa ayuuna haysan ma taas ayaa kaliftay inaad ka hadhay inaad murashax noqoto ma shacbigu iyaga iga codsada way yeedhaan runtii wala yeedho waxa la yiri soo sharax waxaan ku dhimay maanta kuwa iyaguna halka aan 2012 taagan ayaan u banaynay jaaniska qorshahayguna inaan halkan sii joogo ma yahay inaan ka sii socday ahayd halkii aan doonay inaan u sii socdo ayaa ii iftiimaysa meeyirada ku soo noqday saaxiibadayna waxa weeyaan kulay iyaga waxay u arkeen fikirkoogii ayaa wax isku qanciyeen inay soo sharaxaan anaguna fikirkayga iyo ambishkii aan lahaaba waxaan isku qanciyay inaan halkan ka kaco maanta kadibna kor u sii baxo waan gartay xagga wax qabadkan imanayna laba jeer baad magaaladan aad ka noqotay maayir hadda aad kursiga dhawaanta aad wareejin doonto dad badan waxay isweydiinayaan markii horena Soomaaliya xilka dalagaaga qaaday waa laga wada dhagsan yahay adnay badan waad sheegtay haddana kursiga waad ka tagaysaa ka tagtay deegaankii magaalada Boorama maxaa soo oran kartaa maxaa lagu xasuun karaa maxaa soo qabatay waxaad ogtihiin baa lagu xasuun karaa dadka reer Boorama waxay kugu dhaliilaan in aad wax badan aad ka qaban deegaanka hadda wadooyin burbursan baahiyaha caafimaadka xagga biyaha waxyaabo badan ba dadku isweydiinayaan waxyaabaha kamaad qaban bay dadku ku doodayaan aniga laftigaygu waan u qirayaa oo kama aan wada qaban dadku ma yiraahdaan kama u qabane mu wada gaarin bay yiraahdaan waxaan leeyahay intii aanan gaarin kuwa soo socda ayaa leenahay ha qabteen qaar baa ku dooday dhismayaasha xilligan dawladda hoosaad ka bilowdeen xilli gabagaba oo ka sii tagaysan kuraasta ayaad hadda dhismayaasha dawladda hoosaad bilowdeen soo lama fasiran karo inay qayb ka tahay diinta aad wareejin doontaan aad ku wareejin doontaan meeyarka idin bedelaya waa dhismaadeer waa dhisme dawladda ale waa dhamaynaan ku wari waa la dhamaystiray isagoo muraayadu u dhex fadhiisanayaa Soomaaliyeed familka هذا عمران iyadoo muraayadoon u dhisnay buu macnaheedu kuma oran deeman ugu dhisnay ka soo bax lama oranayo waa guri dawladeed dawladaan u qurxinay ka ilaahay u qoray ee maanta kursiga yimaada xafiiska quruxda badan leh inuu ku dhex shaqeeyo ayaan ugu tala galnay ciidamada xildhibaanada mutacalimiinta markaa maayirka doortaana inay kula shaqeeyaan ugu dambeyntii Salmaan Xasan Xadahan maxaa lagu xasuusan doonaa mid iyo laba هذا واحد lagu xasuusanay waxa lagu xoogaal ka maalin walba iga duubto horumar baa lagu xasuusan koow deganaan baa lagu xasuusan laba dulqaad baa lagu xasuusan
waad ogtoo dee wixii aflagaadiya cay iyo waxan mas-uuliyaddaa keenaysa meeyare waad arki jirteed waa xidhxidha saleebaan baa xidhan miyaad maqashay waa midda ku talac tegey oo dee beentu lahayn kari waaye mooyaane ma xidhi jiraanu dadka waa gartay haddii si kale aan u dhigno xagga xariga oo kale ayaa tusaale lagu soo qaata Salmaan Xasan Xaddi in lagu xasuusan doono oo warbaahintu qayb ay ka tahay iyo shakhsiyaadka kale aragtida ku kala duwan tihiin maxaa sababi jira xariga inta badan aad kula kici jirtay shakhsiyaadkaas hadda waxa weeyaan dawaarno xarigu soo iman kara sometimes wuu imanaya laakiin mid ku khaldan tahay iyo mid lagaaga khaldan yahay buu imanaya oo imika kii adigan ku xuloo kale kuwan kaaga khaldanaa oo anigu rabal kaalay adiguna adeeradna waa degdegtay ana sidaan waa hadalku iga yadhacay laakiin kuwo iyagoo khaldan aanan garaabayn oo in gowda laga saara ah ayaa jira marka kuwaasoo kale sharciyada lala tiigsanaya waad garsooma oo yani lama oran lama xiri karo kaasoo kale sharciga lala tiigsanaya qofku etigiska hadduu miidiyaha ama warbaahineed hadduu meel kaga dhaco waa sharciyada la waafajin laakiin ka aad mas-uuliyad iyo power abuse ku samaynaysidee ka laakiin logic ayaad u aragto wixii inuu ka garaabay ama dee aad iska qancisaan dee waa inaad ka heshiisaan shakhsiyaad kale waxay ku doodayaan inaad mas-uuliyadda xilka maayarnimada uga faa'iidaysan jirtay inta badan xadhigga shakhsiyaadka anigu doodaas maxaad ka leedahay kolley dooda waa dee qofku reason dad dhacay ma jiraan doorasho marka la galo dee doorasho dhacaysa moogtahay qofku waan dhacay si official ma oran waa inuu reason sheegatay in codkiisa lama soo basbay in caynkan in balaayo kala dhacda in muraaqibku xumaaday in xanuunkii madganaysa xisbigu inuu dhalay waxaas marka waxa weeyaan wixeena oo dhan waa in la riisan garaayade marka waxa weeye taasi ma jirin waxa weeyaan qofku hadduuna dembi gelin sabab aad baawarkaaga aad ugu isticmaashaa waaba xaaraanba ilaahina kaaga tegi maayo waana imtixaan xilkan lagu saaray iyo mas-uuliyaddiina waa imtixaan lagu eegay hadda sidaad aad u isticmaasho ayuubaana ku xidhanta Salmaan Xasan Xaddi xilkii maayarnimada aad wareejinaysaa hirdan baana loogu jiraa booskan aad wareejinaysa degmada Boorama dadku waxay kugu xamanayaan shakhsiyaad aad soo tababartay inaad xilka degmada aad la doonayso inay qabtaan weeraha caynka odhanaya maxaad kaga jawaabaysaa horta aad iyo aad baa mahadsan tahay waxa weeye goluhu markuu golo noqdo isagaa u madax bannaan qofka uu dooranayo laakiin marka haddana dadka adeegto qofba waxbaa laabta yar kaga jira waad soo odhanaysaa kuwaad shahaado ku qaadatay inaad tiraa war ninkana ugu aqoon badana in la doortaabay ahayd caynkan waad ka sheekaysanaa laakiin waxa weeyaan anigu waxaan jecelahay goluhu isagoo degan oo miyiri qaba inuu soo doorto ilaahu ka ugu yarna muu ahaado ka ay isla gartaan marka ay saa u doortaan kuwa kalena inay wahneeyaan tartan baa jira laakiin haddana ixtiraam baa jira maxamed deeriye anagu saaxiib baan nahay in badan baan soo wada shaqaynay maxamed deeriye tolna waan nahay deegaanna wuu yahay waa soo dhawaynayaa isaga iyo intii kale timaadaba haddaba waad garto ma haddii aan laakiin haddaan maanta codaynayo haddaba waan codayn lahaa haddaan codaynayaanu waanu codayn lahaa macnaha mudane guddoomiye saad la socoto muddaxileedkaaga hadda waa dhammaaday xilkii maayarnimada ka tegaysaa xageed u socotaa mustaqbalkaaga siyaasadeed xagee ku wajahan yahay cumraan aad baa umahadsan tahay kolley mustaqbalkayga siyaasadeed hadalkaygu wuu xidhiidhsan yahay si gradually ayuu xidhiidhsan yahay horena waa idinku sheegay anigu stagekaan taaganahay inaan kor uga sii gudbo kolley election dadku xilka malaha doorasho iyo isa sharaxaadu ma haystaan horena waxaan odhi hulooyinka dawladeed way badan yihin ninba waa siduu uga faa'iidaysto marka waxay hulooyin badan baa ii bannaan imika haddaan sheego shaqala'aan badan baa jirtay waxaan ka baqayaa inay qaarba sii degdegaani maalinta laakiin ay halkaan ka soo jeesto hadduu ilaahay dhaado ayaan idiin sheegaya laakiin waxaa idiin sheegaya kolley inaanan gobolkana ka dhammaanayn yaa guud ahaana gobolada Soomaaliland ana ka dhamaanay dambeyntii fariinta aad farayso bulshadii magaalada Boorama mudada maayarka aad u ahayd ee dhawaanta aad xilka aad uga tagayso iyo xildhibaanada cusub fariinta ugu dambeysay ama dardaaranka ugu dambeysay si weyn ay u diraysaa maxay tahay waa midan ka bilaabayo dardaarankaas koow adiga Musan Cimraan iyo miidiyaha aad maanta aad afayeenka u tahay adigu igala joogto miidiyi oo ku leeyahay bulshada reer Boorama sidaan u wada shaqayn jirnay si ka sii fiican ula shaqeeya miidiyana waxaan leeyahay kamaradiinu wax fiican hadeed hadoobto Cimraan oo fariinta iga gaarsiiyay yaa bulshadana waxaan leeyahay dhalinyartii aad idinku wax barteen ee idinka dhalatay ee mutacalimiinta intaas oo dhan jaamacad ku soo jiray ayaa soo doorateen oo goladeegaan yimi
fadeexad iyo cayha kala daba imanine garab istaaga oo la shaqeeya xildhibaanadan waxaan leeyahay waar la shaqeeya idinkuna shacbigiina oo u samra baahidooda ka turjuma hanin jeclaysanina ka liita ka curyaanka iyo ka kaleba mas'uuliyad baa idinka saara ilaahina wuu idinku eegaya saan anagu meel walba geed walba aanu fariisan jirnay uu fariista oo wax ka dhageysta daawadalkaasna waxa uu ahaa maayarka muddaxileedka ku soo dhamaaday magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi oo halkan wareysi gaar ah nagu siinay aad baan kaga mahadcelinaynaa midana gudoomiye